inan yarba aabaheed ku tidhi aabba da'dii gabdhaha lagu guurgelinayo waan gaadhay kollay waad ii maqan tahee laba nin midkoodun aniga ii keen laba nin midkoodun baad ii keenaysaa ninaan weligii dhimanaynin iyo nin weligii faqiir aan noqonin labadaa un ii keen bay ku tidhi midkood waar ma jira uu yaabay odaygii odayaal buu waraystay waar ma garanayne bal iyada weydii iyadii baa loo yimid oo lagu yidhi aabbo halka soo fadhiisay buu yidhi berigaa gabdhuhu may soo haasaaweynin toosh intay qaadatana ninkay doonta ma soo eegeeganayne gabadhu markay kortay barbaarto guriga kamay baxayne aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed iyo abtigeed hooye la dhashay ayaa u soo baari jiray ninka ku munaasibka gabadhaas innagana zamankeenna waa maxay soo eegeego bal mid lacag low keen sageeyo uu keen wadaadun hanoo keeni bay odhanayaan qaarkood wadaad hanoo keeni gabadhii odaygii uu la fadhiisto wuxuu yidhi aabbo ninaan weligii dhimanayn ma jireen maxaa ujeedaa waxay tihi waa ninka 9 wiil oo walaaluu la dhashay hadduu iga dhintana ka kaloon bay guursan bay tiri ilaa 9 aan dhammeeyo ka bixi maayo aqalka weeyaan uu fikray waa runtii ilaa gabadha haddii mar la guursado ninku ka dhinto sida lagu guursadaa way adkaanaysaa moogtahay garoob bay noqonoo cidna eegi mayso nin walba gabdhaha yar bu iska doondoonan 9 wiil oo walaalaha ninka la dhashay ii keen bay tiri ma dhimanayo waayo hadduu iga dhintana ka kaloon bay booska ka kaloon baa soo gali bay tiri kaan faqiir noqonayna waa kuma waa ninka qur-aanka ilaahay xambaarsan ee xaafidal qur-aanka weligii faqiir ma noqdo bay tiri gabadhaas marka insha allah dhahada inagood maadada cilmiga maadiga dhiganayno dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena ku anfacayna haddana inaan qur-aanka iyo diinta barano soo diyaar ma nihin oon iimaanka barano oon dacwada ku xidhnaano anagu jabuuti ardaydu inta ay wax dhiganayaan ma mashquulino laakiin marka ay waqti ay helaan waqtigooga waa looga faa'iideeyaa masaajidda la geeyaa jamaacadaday la baxaan ilaahay dartii bay u baxaan naftooday soo islaaxiyaan bii'adan faasidada maanta adduunka meel walba gaadhay waa in ummadda laga soo dhex saaray oo laga qabtaa allah inagu anfaco soo diyaar ma nihin insha allah ilaahay cimriga iyo caqliga iyo caafimaadka ha inoo barakeeyo soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen ininka iyo maamuliintii madarasada iskuulka maamula khayr baad ininkuna niga muuqdeen khayrka sii kordhiya insha allah dadaalkana